السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale maalin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeenu kula wadaagna movie reaction iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa filimka Durundar to record uu dhigayo mashruuca Baykar Shanwananda hogaamiyay maanta sheekadiis la amaanaya soo baxay iyo warar kale saaxiib isku toorana soo dhawaada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkan subscribe inoo saar aqyaarta joogtada nagu xira muuqaalka noo la gareeya movie reaction Happy Patel hadda waxa laga sheekeeyay ma aha Firdaasa hogaamiyay asaa director-ka laakiin maxaan filimka soo qaatay mataqaanay Amir Qana raba inaan maanta karbaash hurdada ka kacdaan ninkan tan iyo saameyntii corona kadib mashruucu ka xun yahay oo sii doorana haddana Amir Qana abqari u ahaan jiray filimada uu sameeyay qaanad gaar ah nagu jireen kuwa uu maal galiyay waxbaan ka faa'iidin laakiin Happy Patel wax laga faa'iidayo ma leh sidoo kale dabcan ganacsi ahaan ma guuleysan 16 Janaayo soo baxinjida waa iska diideen maantana aniga waa diiday waxaan ka daawaday dabcan xalay soo af Soomaaliya la soo galiyay meelaha kala duwan soo kala barta Netflix waa la soo galiyay saaxiibayaal marka Amir Qana bilaash markii hore balaa isaga dhiga u dhahay OTT waxaan filimkayga siinaa ma leh hada Netflix kan ka kaashay wax ku dhex jiro oo laga daawado mala yaani caadi ah wallahi Amir Qana lacagta saaxiibo anaga maaniskiisa anaga mashruuc ku qabsan ama hawla kale ku qabsan lahayn ama hindida gaajaysan oo urduflayash ma iskasiis waxa seeta lacagta kaaga baxda filimkan waa lagu haystaa Amir Qana sababtoo ah wax ka jira male Happy Patel filimka Firdaasa director hogaamiyay ka hadda ka horna sheekadiis waa sheegnay wuxuu ku nool dhinacaas Ingiriiska laba nin oo Sirdoona soo korsan Ingiriis isku malay waxay dhan asalkaaga Indian waaye mission India ka jira soo fuli qaab darada shactire iyo wax isku dhex daraan mission aan jirin sheeka aan meel u socoto lahayn Mona Sina laadarka oo la raadina war waxaas filim aan xalay waxaan u daawado oo kaliya isdahay war Amir Qana filimka producer-ka hindida hadii diiday hatta waxa laga yaabaa ina wax un meesha ku dhex jiro shactiro laga yaabo Sirdoon qaab shactire loo dhigay macquul ay tahay content-iga lagu raaxaysan karo meel laga qaato male action في عمله شيك في عمله شعتله في عمله ما لا يعني الاسكسمي انا عادي ان امر قامر في داس محاول لعقته مسكسيس ادي كل على حال كم فيلم اوصن راعين 1 ستار سي امر قانا كغ خشوده هل حدق يبر اسينما kuwi aan dhigi jiray waa 0 star hadda ka hor waa dhiib wax xasuustin laakiin xogaa 0 star waa ka ilaalinaa maadaama odaga cabqari u yahay laakiin mar labaad waxaan igu soo celiyo 0 star aan siina Amir Qana producer film Amir Qana related la hasan noqona ma isleeyeen bacalay taal hal xidig ibarasi Happy Patel waqti ay qasaare Amir Qana hurdada ka kac waxaan maal gelin lacag waa haystaan iyo filmo fiican maal gali filmo fiican sameey waxa uu odaga ku tashan jirnay Amir Qana production films filmada ay sameeyaan waxa laga dhaxli jiray sheeko macquul ah sheeko waaqici ah wax kasto Amir Qana uu sameeyay dahabi jira ama asiha ka soo muuqdo ama hamal gali laakiin odaga hada bariyahan 60 jiro noqdo isku dhaxyaa u maleysaan macquul ma Amir Qana Salman Qan goday galay markii si weynaadeen eber si noqdeen buuxaba ka rambo ninka odaga ka rambo shaaruqan oo xisaabtamo sheekooyin macquul keen action keeno xitaa filmada SRK uu maal gali bariyahan kambanigiisa bal wada oo tiga noqdaan iyo hadee shaleemada noqdaan marka Amir Qana oo saaxiibo saana ma anfacday isbedel sanadka inkastoo had egdin uu soo baxayo kowda May miya meelaha seeto cunigiisa dabcan hogaamiyay ka kowda May ka bedelo هذا بيش مايو صباح أكدين عنقي سو جاميك ساي بلافا لاهور كون سكال بقول أفرتنا تدبر سنة دولار وضو صباح السجن أغسطس لكن أمير هذا أسفين وسمينا هنا مله ماله شاربوين يسكوريجا كان نواب إيكينا بور خلاص Happy Patel فيلم يجمع راعي أنت سنة كيو جود بايا مركن حنسوق عن Durundar 2 يريكورد ودقاي ما دام اللبطة بعد أونا مستي سكورد ودقاي هدين نقطة بوكس بسندي هدين نقطة سانيك ترى أدراش وحاول أسبوع كأسبوع الوحصات تورا جي استوديو مركن أسلا إجنو أنا كوب الله وصاحبه قيمة بدن Durundar 2 بوكس بسندي وحنا هيوج سكن ويك أندي وقاتي لبا بقول إتمنى سديد كرر تدبات كيسي لبات كياني لحدن بقول كي وصل دعو سمي مركي لربر لي تدبات كواد جناعس وسمي لكن ويك 2 waxa ogaatiin 8 maalmood uu ahay bed preview ku jirta hal maalin oo galinka dambe la daawad iyo sidoo kale fasaxyo waaweyn oo ku jireen toddobaadkii kuwa taasa keenaysa marka 60% hoos u dhac u sameeyo toddobaadka labaad in la aqbali karo inkastoo labadii maalmood ugu dambe isbuucan arbaco iyo khamiis hoos u dhac weyn uu sameeyo Durundar 2 saasaytay filimkan wuxuu maraa 805 karoor lacagta nadiifka ah waa filimkii ugu horeeyay taariikh ahaan af hindi lagu daawaday ama Bollywood ah oo 800 karoor lacagta nadiifka gaar record waay on the way filimkan wuxuu ku socdaa sidoo ku gaar la 1000 karoor oo lacagta nadiifka wuuna gaari doonaa hal xuja horta loo Pushpa 2 record u haysto all language Pushpa 2 wuxuu soo xareeyay 125 karoor ma gaari kara lacagta nadiifka waxay leeyihiin box sindi way ku adagta Durundar 2 sababtan waxay tahay maalmihii ugu dambeeyay hoos u dhaca uu sameeyay iyo koonfur India oo filimkan garab taagnin sababta luqadaha koonfur lagu daawaday konton karoor keenay sida box sindi soo daabacayaan adiga 853 karoor lacagta nadiifka all language uu maraya Pushpa 2 all language wuxuu ku istaagay 125 karoor way ku adagtay record-kaas inuu gaaro laakiin darajada 1000 karoor inuu soo xareeyo filimka ugu horeeya oo Bollywood af hindi kaliya
rikoorkaas wuu sameyn doonaa sida shabakada box office indii ay soo daabaceen khamiistiin wuxuu keenay filimkan saaxiibayaal 417 karoor bar uu keenay khamiistiin wuxuu keenay 16 karoor hoos u dhac u bilaabo sida muuqata marka haddana 805 karoor iyo lacagta nadiifka maraan halka sheekada markay maraysa box office indii waxay soo daabaceen taariikh ahaan toddobaadka labaad filimada ugu lacagta badan Durandar 1 iyo Durandar 2 waxa u xirantay qaanad gaar ah maadaama ay yihiin labada filim ee taariikh ahaan toddobaadkooda labaad ganacsigooda 200 karoor ay ka tilaabeen Durandarka koowaad wuxuu keenay sida xogta kaga jeedin 242 karoor ayuu keenay Durandar 2 wuxuu keenay 228 karoor bar waa record labadan filim kaliya u gaartay waxa soo raacaan filimada kale 100 waaye Java toddobaadkiisii labaad wuxuu keenay 170 karoor Street 2 toddobaadkiisii labaad wuxuu keenay 141 karoor saddexaad uu ku jira Gadar 2 shanaad ku jira toddobaadkiisii labaad wuxuu keenay 133 karoor bar lixaad waxa ku jira Animal oo keenay 132.93 karoor ama waxa dhahdaa 133 karoor Jawan ayaa ku jira kaalin toddobaad wuxuu keenay 117.94 karoor Dangal wuxuu soo xareeyay 111.56 karoor The Kashmir Files wuxuu keenay 107.74 karoor Sayyareen wuxuu keenay 105 karoor filmadan waa filmada Bollywood oo kaliya way jiraan filmo toddobaadkoodii labaad ayaga xitaa 100 karoor ka tilaabeen waxaana kamid Bahubali 2 iyo Pushpa 2 ayagana waxa u soo gashay toddobaadka labaad inay 100 karoor ka tilaabaan laakiin xogtan waxay gaar u tahay ogaada filimada dabcan dhinacaas iyo laga daawado Bollywoodka dhinaca kale ninkii Taran Adaraash ah posterkan uu soo tuuray wuxuu dhahay 900 karoor 900 not out 900 karoor filimkan gaaray wilna ma hakanaya wuxuuna ku socdaa sidoo uu ku gaari lahaa 1000 karoor sidoo kale Taran Adaraash wuxuu leeyahay akhbaarta wanaagsan waxay tahay xitaa 10ka bisha Abriil jimcada dambe xitaa Boot Bangala oo soo bixi la oo loo baajinay waxay ka dhigantahay Durandar inuu gaari doono lifetime kiisa 1000 karoor sidoo uu soo daabacayo Taran hadda wuxuu leeyahay filimkaneeto ganacsigiisa toddobaadka koowaad wuxuu keenay 649 karoor toddobaadka labaad wuxuu keenay 251 karoor lacagta nadiifka af hindi kaliya Taran wuxuu leeyahay filimkan 900 karoor iyo maraa sida uu soo daabacay xogtaaneeto dhinaca kale shabakada Saanigna waxay dhahaan Durandar 2 wuxuu noqday filimka ugu dhaqsiyaha badan ee 1500 karoor ku gaaray ganacsigiisa guud World War Gross laba toddobaad waana record kale The Fastest waa filimka ugu xawaaraha sare ama maalmaha ugu yar ku gaaro sida muuqato dabcan 1500 karoor maadaama 2 weeks uu ku gaaray filimkan sida muuqato Aditya Dar filimkiisa daawadayaasha ma badan waxay leeyihiin shabakada Saanig milestone kan wuxuu ku gaaray within 16 days lagu dara maanta maadaama hadda uu marayo 1490 karoor from today marka 1500 karoor ka tilaaba ganacsigiisa guud World War Gross taasoo ay ka dhigan tahay filimkan inuu wali uu sii gadmi doono sida muuqato taariikh ahaan filimada ugu ganacsiga badan marka Dangal ayaa kaalinta koowaad ku jira 270 karoor keenay suuqa Jano Dangal umada nafta kaga qaaday Bahubali 2788 karoor waa xogta Saanig waay Pushpa 2742 karoor Durandar 2 1500 karoor ayuu maraa sida Saanig ee shaaca ka qaaday marka waxaan isleeyahay Bahubali 2 iyo Pushpa 2 waa ku daan laakiin Dangal inuu gaaro way ku adkaan doontaa saaxiibayaal marka aan soo qaadano Sharwanando waxa 2026 sanad qaas u yahay sababta filimkiisii Naare Muraru Blackbuster oo ahay 4 star la sii feestadii sankarantii soo baxay Janaayo bartamaheedii hadda 4 bil kadib waa soo laabtay wuxuu la imaaday Biker oo waliba ka duwan sheekadii familiyaaraha iyo jacaylkii labada gabdhood u dhaxeeyay mid ka duwan oo imaa markaan tartan mootooyin u wada inaba caadi ma saddex xidig iyo bara la siinaa meelaha qaar 4 star meesha ugu yar 3 star la siinaa waxa la marka Sharwananda wuxuu la imaaday another winner aan isla eegna marka sheekada filimka Biker ninkan waa ugu jirtaa marka sanadkan 2026 ugu dambeyntii uu soo laabtay Biker markii la fiirshay sheeko ahaan wuxuu ku saabsan yahay wiili aabihiis xiriirka dabcan ka dhaxeeya marna isku dhacay marna isfahmayaan iyo tartanka mootooyinka oo lagu kabay haddaba sanadku waxa la joogaa 2003 sheekada ay ku bilaabanayso Sharwananda wuxuu ku matalaa Vikas Narayan xiriir adag wuxuu kala dhaxeeyaa oo qalifsan aabihiis Sunil Narayan oo doorkan uu matalaya superstarka reer Telugu Rajesh Sekhar oo soo laabtay haddaba Vikas wuxuu aad iyo aad khatar ugu yahay mootada laakiin isma oga awoodiisa aabihiis wuxuu markasta cadaadis ku saaraa sidoo u noqon lahay indii inuu guulo ka keeno adduunyada uu ka noqdo number 1 tartanka mootooyinka laakiin Vikas waxaas xoog ma saaro taas oo keenaysa marka aabihiis asaga inay kala fogaadaan waliba aabihiis xaaskiisana ka geeriyoto wiilkiisa kaliya korsada odaga marka wiilkiisa sida wiilnimo ugu la dhaqmeen waalid ahaan uu la dhaqma laakiin macalin adag iyo wuxuu la dhaqmaa iyo nolosha inuu nin kartil noqdo taas oo keenaysa marka wiilkii aabaha inay isku dhacaan wiilkan dhalinyaro ma fahmi karo markasto waalidka ay ku adkeeyaan dhan saas samee markasto ilmaha ay dhinaca kale daraf kale aadan saa darteed waxa dhacaysa Vikas tartankii mootooyinkan uu iska deynaa aabihiisna uu ka soo tagaa wuxuu jeclaanaa gabadha lagu magacaabo Ananya doorka matalayso Malavika Nayar aabbo noqona marka muddo kadib markuu aabbo noqdo arko ilmihiisa dhibka uu ka marayo ayuu wuxuu dib u xasuusanaa marka aabihiis sida uu shalay u jeclaa taas oo danta ku
qasbaysa marka inuu mar labaad tartanka mootooyinka laabto xiriirka aabiis uu soo celiyo very emotional movie waa marka waxa la tartanka mootooyinka oo lagu kabay xiriirka wiili aabiis ka dhaxeeyo wiili ka dhaxeeyo awoowaha cuniga meesha imaanaya gabadhan Malvika Nair marna hooyo marna jecel ah sheekooyinka familiyaaraha sida loo dhigan inaba caadi yani emotionka uu leeyahay tartanka oo fast rate ah waxay keentaa le filimka marka 3 xidig iyo bar in la siiyo Sharwanand waxa la best performance uu la imaado jilinka marka uu ninka tartanka uu jilaayo marka uu dhalinyarada Carefree uu jilaayo marka uu aabaha uu yahay marka uu dabcan noqonayo qof jecel matala intaas wajibo si excellent uu jilay Malvika Nair ayadan waxa la doorka jecelkan way ka baxsan laakiin doorka hooyanimada iyo mas'uuliyadda ay qaadanaysa caadi ma oo daraja shaqarna filimka ba asaga ku dhisan sida wiilkiisa ugu adkeenayo sidaysan wiilkiisa ku fahmeenin sida wiilkiisa ugu soo laabanayo sida wiilkiisa guusha ula jecel yahay inaba caadi ma dhammaan caawiyaashka soo muuqdeen kullin waa la amaan marka waxa leeyahay reer Talugu jimcadan waxa uu soo baxay film winner ah Biker marka hadii reer Talugu garab istaago filmkan san loo amaana oo xala gelinka dambeeyay baramere loo sameeyay Sharwanand xarasha lagu helaa waxaan isleeyahay maadaama filmkiisa ugu dambeeyay u gadnay kanna waa gadmi doona isleeyahay idinkana bal ra'yiina ka dhiibtaan barnaamijkan intaas nooga egyahay aad u maasantihiin xasuusina hadii aad tahay saaxiib nagu cusub kanaalkan subscribe inoo saar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته